رسول بدنا كسب هذا وانا بابي ودن كنا ما هو قالين الله أكبر الله أكبر. أنت بلشة دقمة ما هداي وحيسكو صاب هداي أقول سيجي أي سيسي يهود سومالي لان قبل هذا وقوي bulshada heer ma haday dareenkoodu inay ka soo horjeedaan Soomaali ay mid tahay aysa kala gooyi karin yahuudu ciyadan aqoonsi haysan Soomaali ma faragali karto awal waxaan dhibaato ku qabnay bulshada muslimiinta ee heer Falastiin dhibaatada suuqa ay ku haysay Allahu akbar yahuudu maanta iidan adduunyada caalamka inteera kala aqoonsi aan ku lahayn dal yahuudu leedahay ma jirto dalka ay degan tahay oo Mareykan ugu tuwayo xoog loogu hayo waxa iskala muslimiinta reer Falastiin Allahu akbar gayiga Soomaalina aqoonsi ma karto gobolada waqooyi waxaan leenahay walaalihiin Soomaaliyaatihiin Soomaali kama bixi doontiin waxaa diraya madaxweynaha Somaliland ninka la yiraahdo cirow khawaaga joogto khawaw kulaalad u baxo haysa mugaan waxa la rabaa cirow inaad ilaahay ka cabsatid gaaladaas hanoo soo dhaweeyeen yahuud waa laga fogaadaa ma looma dhawaado cirow hadaadna midaas ka fiijooganaanin wallahi billahi tallahi waxaan kugu maanaynaa meesha la hargeyso cirow ka wantow mawduucaas yahuud ma banaana cirow wantow ilaahay ka cabso cirow dhulkayna ma kartay yahuud dhulkayna ma kart waa ku baabee waa ku lee qurjubaan ka dhigaynaa kan baan uga adeegaynaa manay ma karta diinta nabi maxamed ay dhibi jireen reer bani israa'iil rasuul badana ka soo baxda waana baabiyeen wadankeena ma u ogolin Allahu akbar saaqo meesha wargeysa maamul kasto waxaad ii sheega maseer iyo yahuuda kan meel walba albaab qaraacna waxna waa ku weysin dalkiinan iyo dadkiina u soo dhaaqda dalkiina ka dhaqa Soomaaliga tiina Soomaalidu ku adkaysta waxa way waqti saasa wuxuu raadiyay loo maraad Somaliland waa gobol kamida Soomaaliya mana kala go'i doonto Soomaaliya waa israacsan tahay Israa'iil waxa leenahay Soomaaliya ma kala go'ayso ha isdaalinin Soomaaliya waa israacaysa wiligeena israacsaneed haddana waa israacsan tahay marka dadweynaha ku dhaqan degmada Mahaday waa u hambaleeyaa maadaama inta waxaan isugu soo banaan baxnay degmada Mahaday shacbiga iyo maamulka iyo xildhibaanada ka soo jeeda degmadan ee dawlad goboleedka Hirshabeelle waxa waaye waxaan isugu soo baxnay inaan ka dhiidhino oo ka dagaalanno oo shucuurteena muujino aqoonsiga beenta oo Israa'iil oo yahuudu aqoonsatay dawlad Soomaaliland ay aqoonsatay aan shucuurteena ka muujinaynaa sida aan uga xunaan ka muujinaynaa waxa waaye waxaan tusaynaa dareenkeena inaanan ogolayn inay Soomaali kala go'do ma ogolin Somaliland waa gobol kamida Soomaaliya waa gobolka waqooyi galbeed waxa waaye yaan lagu qaldoomin yuhuudu in sarcaaday wadaa iimaankay laadahay waxay rabtaa inay caalamul islaami ay agta mariso waxaan ka soo horjeednaa wixii ay ugu yeertay Israa'iil shaweyn waxay ugu yeertaan ka soo horjeednaa mana ogolaa doono waana la dirir doonaa ilaahay idankiis ummadda Soomaaliyeedna waxa waaye waxa lagu yaqaanaa boqolkiiba boqol inay maaragtay oo ka rumeeyaan wixii ay ballan qaadaan ama dareenkooda uu yahay inay ka rumeeyaan lagu yaqaanaa awoowayaasheenan ka soo gaarnay aabbayaasheenan ka soo gaarnay inaan la dirirno gumaysiga oo aan la ka guuleysan waana adkaanaynaa insha Allah waxaan maanta isugu soo baxnay si nabad ah annagoo muujinayna mowqifkeena ka dhanka ah waxa ay Israa'iil ugu yeertay inay Soomaaliya aqoonsiiso waxaan aqbalayna ma ahan Soomaaliland waa qayb kamid ah Soomaaliya intaas kadib waxaan ognahay shacabka reer Falastiin dhibaatada ay kulmayeen sanadihii ugu dambeeyay hadii ay noqoto in la barakiciyo hadii ay noqoto in xuquuq loo geysto iyo wax walba oo xuquuqda bini'aadamka laga hor istaago annaga yahuudi saxan oo falmayso sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa maamulka Somaliland inay si fiican uga fiirsadaan ka digtoonaadaan wax walba oo dhaawacayo dareenka ummadda Soomaaliyeed